maanta waxa xaggan loogu yimid hay'adda IFAD iyo wasaaradda xanaanada xoolaha oo wada socda oo ku yimid kormeer xarunta calafka xoolaha ee laga dhisay Wajaale taasoo qayb kamid ah ay maalgeliyeen hay'adda IFAD maanta halkan la joogto mas'uuliyiinteedii ayaa maanta la kormeeraya xaruntan waxay noqon doontaa xarun lagu baaro tayada calafka xoolaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo habkeena xoolaha u dhaqan jirnay wax weyn ka bedeli doonta marka goor gaaban hadalka badan mayno waxaan soo dhaweynayaa madaxda sare hay'adda IFAD oo halkan magaranaysa maalgelisay qaybta shaybaarkan aan maanta joogno ee kormeerka ku marayno halkan waa xarunta waxaan ku cilmi baarista ama researchka calafka xoolaha ama taranka xoolaha waxay noqon doontaa insha Allah meel magaranaysa haddii jeer magaranaysa research noqota oo wixii magaranaysa haddii jeer la baariyo xoolaha ama cilmiga xoolaha laga korsanayo halka loo yimaado insha Allah guud ahaan hay'adda horta aad baan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulkii Wajaale dhismaha intaa leeg ee bilicda iyo quruxda leh ay maalgelisay qaybtan laabkan halkan calafka xoolaha halkan banka waxa ku dhaqan xoolo aad u fara badan kuwaas oo u baahan ka warhaynta badqabkooga iyo daryeelkooga iyo markasta in la daraaseeyo iyo waxyaalaha calafka kala duwan ay cunayaan in markasta laga warhayo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hay'adda guud ahaan maamulkan heer wasaaradeed ka soo qayb galayna aad baan u soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada degmadii Wajaale hay'adana aad baan ugu mahadcelin kastoo anaguna aan leenahay meelo badan magaalada dhismayaal kalena noo fuliyo mustaqbalka haddii la yiraahdo anigoo ku hadlaya hay'adda qaybtan laboratory-ga fulisay IFAD ujeedada ugu muhiimsan ee qaybtan laboratory-ga loo fuliyo waxa weeye sidii ugu qayb qaadan lahaa muxuu ahaa horumarinta calafka xoolaha tayadiisa baaritaanka caafimaadka guud ee xoolaha guud ahaan baaritaankooda haddii ku deegaanka yihiin iyo haddii ay kuwa magaalada lagu qoliyo loo baahdo halkan la keeno in la hubiyo xanuunada muxuu ahaa zoonosiska dadka iyo xoolaha kala qaadan haddii loo baahdo in lagu baaro waxyaabaha basic laboratory-gaas ee muxuu ahaa shaqada loo baahan yahay oo dhan ayuu laboratory-gani qaban doonaa intaa waxa u dheer waa markii u horreysay ee laboratory ku saabsan calafka xoolaha ama feed analysis lagu samayn doono halkan muxuu ahaa Wajaale ama magaalada Wajaale taasina waxay horumar u tahay oo ay wax badan ka tari doontaa xaruntan oo wasaaradda xanaanada xoolaha ay ugu talagashay horumarinta iyo wax soo saarka qaybta taranka ee xoolaha hay'adda IFAD markii ay aragtay barnaamijka noocaas waxaa ku soo dhiirinay qaybta laboratory-ga baaritaanka ama analysis ku saabsan in iyaduna ay contribute karayso mustaqbalka insha Allah waa la qalabayn doonaa inta ayinka badanna muxuu ahaa kolba wixii barnaamijka loo baahdo wada shaqayntii hore siday u lahayd ayay kan soo wada doontaa mahadle in halka isku keeno inagoo maanta wada caafimaad qabna dhammaantiina waxaynu wada shaqaynaynaa ummaddeena reer Somaliland mid hay'ad jooga iyo mid xarun dawladeed jooga iyo mid jooga degmaba anigu intii aan hay'adan madaxa ka noqday bishii March waxaan aad ula shaqaynayay wasaaradda xanaanada xoolaha sidii dhismahani u dhamaan lahaa qalabkiisii waan dalabnay oo lagu shaqaynayo oo isaguna intaan sanadku dhamaan ayaa la keenayaa oo la rakibayaa tababaradii waa bilaabi doona hay'ad dhakhaatiirta xoolaha ee xuduudaha lahayn ee Sweden noola shaqaysa ayaa iman doonta oo tababarkii iyo u bilaabi doonta hadda dhismihii baanu dhamaynay kormeer baanu ugu nimid inaanu qandaraaslihii kala wareegno waana isku afgaranay wasaaradii inaanu kala wareegno qandaraaslihii qalabka marka la dhamaystirtana handoverkana wasaaradda dib loogu wareejin doonaa maanta waxaan u nimid inaanu intaa kormeer ku soo sameeyno waxaan hadda ku soo dhaweyn doonaa hawlaha wasaaradda amba shaqada aan qaranka u hayno inaan maxaan ku raahdaa aan kormeerno shaqooyinka socda inaan maxaan ku raahdaa aan ku galno ayuu safarka iyadan maanta u daaraa Ahmed doobiyaha hay'adda IFAD inaan maanta meeshan iskugu nimaadno oo gabagaba ku dhow qaybta dhismo ay dhamaatay qaybtii laabka iyo qalabayntiisa ayaa maxaan ku raahdaa dhiman iyadana waa la dalbay sidaa uu noo sheegay wuxuu markaa laabkeenu qaban doonaa inuu qabto laba shay qayb ka shaqeysa amba lagu ogaado tayada calafka amba for analysis iyo qaybta maxaan ku raahdaa xoolaha shaybaarkii dhiigii iyo maxaan ku raahdaa wixii qaadayay iyo xanuunadii lagu ogaanay waa xarun weyn markii ay wasaaraddu aragtay meeshan muhiimadda ay leedahay ayaa xaruntan xarun cilmi baadhis inay noo noqoto oo sida wasaaradda beeraha abuuriin ay u tahay meel seedka iyo cilmi baadhis ay noqoto annagana ay tugo jala noo noqoto
meesha maxaan ku dhahdaa xoola naaxinta iyo calafka aanu ka bilowno annagoo bedelayna nidaamkii hore ee xoolaha aanu dhaqan jirnay ayaa meeshan waxaan doonaynaa inaan ka soo saarno maxaan ku dhahdaa formulooyin cusub oo aan xoolaheenna maxaan ku dhahdaa ku dhaqi doonno waayo meeshan waxaa laga helayaa loodii baa laga helayaa adhigii baa laga helayaa wixii aan xoolo dhaqanaynaba waa meel maxaan ku dhahdaa ku habboon keliya kama wadno wajaale xaruntan waxaanu hadda dhisanaa wasaarad ahaan sariibadii wajaalo qayb ka mid oo caanaha iyo lagu iibiyey hilibka kawaankii wajaale ayaa iyadana maxaan ku dhahdaa socda iminka oo iyadana kormeerka shaqada ku jirta oo iyadana soo eegi doona haddii ilahay yidhaahdo waxaasoo dhan waa markii aanu aragnay baahiyaha wajaale ay qabto meeyir ayaanu maxaan ku dhahdaa aan qabannay waa xaruntii saddexaad ee wajaale maxaan ku dhahdaa aan ka furno muddada 2 sano iyo barka ama 3 sano ku dhow ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi joogto kuwa kalena waan rajaynaynaa oo maxaan ku soo soconaa de meeshan bilicna waa u tahay degmada amiraadna waa u tahay intaasoo dhaqaatiir intaasoo hawlwadeena ilaa 30 qof oo hawlwadeena ayaa ka qayb gali doona maxaan ku dhahdaa wasaaradda qaarba maxaan ku dhahdaa wax ay ku ay maxaan ku dhahdaa takhasuskooda iyo wuxuu yahay aad baan ugu mahadcelinayaa maxaan ku dhahdaa hay'adda IFAD waxaana la qabatay laabkan iyo taangi biyaha kasaan labadaaba iyada maxaan ku nala fulisay waxyaalo badan oo ka rajaynay mar haddii xaruntu bilaabantay qaybtii kale iyadana calafka laga beerayay oo iyadana halka ka sii dambaysa ayaa iyadana maxaan ku dhahdaa dhawaan aan siligeedii iyo hawsheedii maxaan ku dhahdaa iyadana galanaa xidhanaa marka waxay noqon doontaa meel aad wasaaradda iyo nooga